bismillah waa mar kale iyo barnaamijkeeni sirta nolosha. darkani wuxuu noqon doonaa darkii labaad xalqadiisii u horeysay. xalqadan waxa aynu ka hadli doonaa mowduuc aynu ula baxnay fahamka ujeedada. ereyga ujeedada haddii aan aad u sii dhuuxno waxaan ka socday ama aan ka sugala soo baxay ereyada lacayna oo ay ka mid yihiin hadafka ama yoolka ama magaranaysa higsiga himilada ereyada lacaynka. waayo haddaan ku raahdo ujeedka aan barnaamijkan ka leeyahay waa waxa iyo waxa, iyo haddaan ku raahdo hadafka aan ka leeyahay barnaamijkan waa waxa iyo waxa aad moodaa inay yara dhowdahay oo suuragalnimadeedu ay badan tahay marka aan ku raahdo ujeedada aan barnaamijkan ka leeyahay waa taa iyo taa. kolka waxaan maanta ka hadli doonaa ujeedka waxa la yiraahdo. dhalinyaro badan baa aan maqlaa amaba ii timaada oo qof wuxuu ku oranayaa waxaan rabaa inaan qoraan noqdo, dibadda xoogaa buu qoraal isku dayaya marka dambe qoraagu way hawl badatay qoraalkii iyo waxaan doonayaa in marka abwaan iska noqdo. dadana gabayga wixii isku dayay wuxuu ku marka dambe waxaan rabaa inaan fanaan noqdo. dabadeed waa maxay ujeedadiisu wuxuu doonayaa inuu wax noqdo, laakiin ujeedada iyo way kala duwan yihiin wax noqoshadu. qofku inuu wax noqdaa waa halkeeda, waa marinka loo maro ujeedada, laakiin ma aha ujeedadii. oo tusaale ahaan haddaan ku idhaahdo waxaan rabaa inaan madaxweyne noqdo, taas waa wax noqosho aan anigu wax isla rabo. laakiin haddaan ku idhaahdo waxaan rabaa inaan cadaaladda wax ka qabto oo aan sinaanta iyo cadaaladda ummaddan aan wax badan ka qabto oo aan dadka simo oo caynka iyo caynka, taas waa ujeedo. kolka ujeedadaas si aan u qabto marinka aan u marayaa waa inaan xil qabto ama aan madaxweyne noqdo ama aan waxa iyo waxa noqdo. kolka waxaad moodaa inaan isku khaladno wax noqoshada iyo ma garanaysaa ujeedada. aad baanay u kala duwan yihiin runtii. kolka su'aasha meesha imanaysa waxa weeyaan labada mar kastana waxaa horeysa ujeedada. oo markii adduunyada layna keenayay marka hore intaan layna abuurin ma garanaysaa aynaan saynis yahanada noqon, aynaan adduunyada laynagu faafin, mar kasta waxaa laynoo soo diraa rusul iyo diin iyo kutub baa laynoo soo diraa sheegaysa ujeedada aynu u noolnahay, ujeedada aynu halkan u joogno oo ah in ilaahay la caabudo. nabiga calayhi salaatu wasalaam xulashadii la xushay intii aanu ma garanaysaa islaamka hogaamin, intii aanu ma garanaysaa futuuxaadka samayn, intii aanu caanka noqon, intii aanu kan iyo keer noqon, marka hore waxaa loo sheegay ujeedadii uu u noolaa, ujeedadii loo xushay oo ah in adduunkan korkiisa ilaah keliya lagu caabudo. kolka qof kasta oo adduunkan wax ka bedelay, cid kasta oo wax noqotay, shirkad kasta oo ma garanaysaa wax soo saar adduunyada kusoo kordhisay, qof kasta oo saameyn ku yeeshay adduunyadani waa qof aan dhaqaaqin ama aan wax noqon ujeeddo ka horeysa mooyaane. isagoo ujeeddo meel dhigtay oo ay ma garanaysaa vision iyo mission ma garanaysaa meel dhigtay oo ma garanaysaa meel farta ku fiiqday mooyaane waa qof aan dhaqaaqin. laakiin inaga waxaad moodaa marka hore qofku wuxuu sii astaysanaya waxa uu noqonayo isagoon ujeedadiiba meel ku ogaanin. kolka waxaa laga yaabaa inaad isa su'aasho oo aad tiraahdo labadu maxay ku kala duwan yihiin oo haddii cadaalad inaan sameeyo oo aan cadaaladda wax ka qabtaa, haddii ay dalbayso inaan madaxweyne noqdo, labadu maxay ku kala duwan yihiin? labadu maanay sinayn unbaa laga yaabaa inaad is weydiinayso. labadu haa dabcan dhan markaad ka eegto way siman yihiin, laakiin markaad aad u dhex gasho labada micno aad bay u kala duwan yihiin. ninbaa maalin ii yimiyo wuxuu igu yidhi waxaan rabaa inaan taajir noqdaa baan doonayaa buu yidhi, oo ma garanaysa aan bilyaneer noqdo oo kan markaasaan ku maxaad ku falaysaa markaa inaad waxaasoo lacaga hesho oo taajir noqoto? markaasuu waxaan ku falayaa dee waxaan doonayaa nolol raaxala ku noolaado, gabadh baan ku guursanayaa, guri baan ku dhisanayaa, caynkan iyo caynkan, nolol bilaa warwara oo farxad leh oo caynkana ayaan helayaa buu igu yidhi. markaasaan ku yidhi haddaba aniga ujeedadeedu waxa weeyaan inaan noloshaa farxadda leh helo, inaan helo weeyaan. labadu maxay haddaba ku kala duwan yihiin? labadu waxay ku kala duwan yihiin, waxaa laga yaabaa inuu hebelkani lacagta ururiyo oo uu lacag helo oo milyaneer noqdo, dabadeed uu farxadba ku noolaan waayo. ileen ujeedadii rasmiga ahayd muu doorane, wuxuu doortay marinkii loo marayay farxadda. waxaana laga yaabaa marinkaa uu maray inay farxadda geynna weydo oo dhaaxaad arkaysaa islaan yaroo buul ku jirta oo aan maanta waxba cunin, berrina aan meel laba waxba ku ogeyn oo iska faraxsan. iyo waxaad arkaysaa dad baabuur iyo guryo iyo dabaqyo iyo military ilaalinayo oo haddana seexan karila oo warwaraya oo kaniin ku seexda baad arkaysaa. marka waxaa laga yaabaa marinkan uu doortay ee lacagta iyo hantida iyo taajirnimada inay farxaddaba keeni weydo. marka waxaa dhaantay oo kana caqli fiicnayd
inuu marka hore ujeedadiisa ka dhigto farxadda dabeed marinkii uu doono uu u maro ama uu taajirnimo u maro ama uu faqri u maro ama uu xil u maro ama wuxuu doono u maraabay ahayd marka labadu way siman yihiin laakiin way kala fogaalsan yihiin waa laba ujeedo oo kala fog midna waa marin oo waa halka shayga loo maro midna waa ujeedada rasmiga ah haddii aan tusaale kale ku laro oo sheegaya fogaanshiyaha ujeedada iyo ma garanaysaa faa'iidada ay leedahay haddii tusaale ahaan aan maanta ku idhaahdo anigu Hargeysaan jooga aan ku idhaahdo waxa aad tegaysaa oo adigu haddaad tegayso caawa Ceeri Gaabo 500 kilomitir wax ku dhaweeyaan anna aan ku idhaahdo Berberaan tegaya labadeennabana laynoo wada qabtay 2 cisho gudahood waa inaad ku tagtaan anna waa inaad Berbera tagaa adna waa inaad Ceeri Gaabo tagtaa haddii labadeennaba 2 cisho laynoo wada qabto caawa subaxda markay saa waagu u bariyo adigu waa tabaabushaysanaysaa ilaa meel fog baad tegaysaa hor aad u kacaysaa gaari baad raadsanaysaa cunto iyo sahay baad qaadanaysaa ma garanaysaa meel baad sii maraysaa Berbera iyo waxan iyo Burco waad sii wada maraysaa ilaa meel fog baad adigu ku socotahay waad ka dardar badanaysaa kan kale waxa laga yaabaa inuu subaxa iska soo kacayo oo uu yiraahdo halkeen uu gaaraya ay gelinka dambe iska soo kacaya waraan waxaan ku tagayaa ugu 2 saac oo 3 saacadood gudahood kolka qofka ka ujeedada fogley weliga iyo Allah uu ka dardar badnaanaya uu ka firfircoon yahay uu ka magaranaysa uu ka fogaal aragsan yahay kolka weliga ay Allah gaari maysid meeshan adigu aad ujeedadaada dhigatay aad isbaarada dhigatay ee aad farta ku fiiqatay isagu libilaabkeed iyo saddex laabkeed buu farta ku fiiqday dabadeed goor hore ayuu diyaar garoobaya marka waa sababta aad u arkayso qof isdhigtay oo meel iska jiifa oo ujeedadiisu tahay inuu cuno oo uu cabbo guri uu seexdana uu helo ujeedadiisu waa intaas waa meel dhow midna waxa laga yaabaa in ujeedadiisu tahay dadka baahan ee magaalada jooga iyo dadka faqriga u dhimanaya dadka islaamka caalamka jooga oo dhan inuu wax u qabto oo caawiyo uu ka ujeedo fogiyo qofkaasi kolka judhaba yaraanta isku dhaafaysan yaraantu kugu dhaafayaaba isagoo 30 jir laga yaabaa inuu guriga iyo hooyiga iyo cuntadaba helo adiguna waxa laga yaabaa adigoo 40 jir inaad ujeedadaadi gaari ilaa uu ka ujeedo fogaayay caafimaadkan barta anigu marka ardayda qaar baa aad xarfaan u ah fasalkayga dabadeed waxa laga yaabaa anagoo wax badan akhrinay mararka qaar inuu isagu naga xariifsanaado oo ma garanaysaa markaasaan ku waniyo heede sidee wax u akhridaa baan ku mid maalin markaasuu markaan anigu wax akhriyayo waxa aan sawirtaa oo halkan ii soo istaaga bukaankii aan daweyn lahaa oo waxa aan wax u akhristaaba si aan bukaanka ugu daweeyo dib baan markaas wada eegno waxaan idhi warshow anagu sababtaan u afilxilaanahay aan nookan u dhaafilaanay waxa weeyaan waxaan wax u akhrinaa si aan imtixaanka u baasno ama aan shahaadadu qaadano kolka waxa laga yaabaa isagu anagu inaan 10 saacadood wax akhrino isagu 1 saacad buu akhriyaya laakiin halkaas saacad buu wax akhriyaya si ujeedo leh si fogaal aragnimo leh buu wax u akhriyaya si uu sawiranayo bukaankiiba wax u akhriyaya anagu waxa laga yaabaa in wax akhriyayno si aan imtixaanka ugu baasno kolka uu naga ujeedo fog yahayo markasta uu naga concept weynaanaya uu naga aqoon ballaaranaya waayo waxaanu si ujeedo fog leh u akhriyay kolka aynu nolosheena u noolaano aynu nolol maalmeedkeena u noolaano oo aynu magaranaysaa u kallahano oo aynu u kacano aynu wax u baranno aynu xilka u qabanno aynu wax u cunno oo aynu wax u cabno si ujeedo fog leh aynu wax u cabno aynu wax u cunno oo aynu wax u baranno laakiin inaan u noolaanin si aynu inagu wax u noqono waxaad arkaysaa odayaasha oo dhan baa koonaya anagu xarbaan xildhibaan odayaasheenoo dhan aabayaasheenoo dhan iyo ma garanaysaa dadka inaga waaweyn oo dhan waxa la wada higsanayaa inuu xildhibaan noqdo inuu wasiir noqdo inuu madaxweyne noqdo inuu kan noqdo inaguna waxaynu wada rabnaa inaynu noqono qoraa ama abwaan ama fanaan ama kan waxaad moodaa ujeedooyinkeeniba inay anaaniyad noqotay oo ay tahay in ujeedada gibigeediba in anagu wax noqdo dibad qofka waxa lagu amaanaya qof dhanba waxa lagu amaanaya qofkaasi ujeedu gaarayo wuxuu noqday hebel buu noqday oo imaka sheekh weyn buu noqday oo imaka abwaan weyn buu noqday oo imaka kaas uu noqday laakiin looma eegayo oo qofka halbeeg lagama dhigayo waxa uu qabtay hebelkaas waxa soo qabtay lagu mar laakiin waxa lagu leeyahay hebelkaas waa nin meel gaaray imako sheekh weyn buu noqdo abwaan weyn buu noqday magaranaysa kolka aynu ka dhigana ujeedadeena mid dhaafsiisan anaaniyadeena iyo wax noqoshadeena iyo wax ahaanshiyaheena laakiin waa inay ujeedadeenu ahaataa wax qabad isbedel wax soo saar ma garanaysaa koboc wax bedelid waa inay ujeedadeenu halkaasi ahaataa oo aynu halkaasi beegsanaa barnaamijkeena maanta intaasaynu kusoo gabagabaynaynaa aad baa u mahadsantihiin
isgaarsiinteena soo gayga Somaliland gulay oo horseeday badan